wardegdega oo hadda naga soo gaaray Villa Soomaaliya ayaa sheegaya in sheekha weyne caanka Sheekh Maxamed Cabdi Umal uu kulan la yeeshay madaxweynaha dalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan la qaatay culimo u diin Soomaaliyeed iyo guddiga dhaqaale ururinta wadanka Kenya iyo Uganda. guddigaasi oo hogaaminayo sheekha caanka Sheekh Maxamed Cabdi Umal. madaxweyne Farmaajo ayaa guddiga dhaqaale ururinta ee dalka Kenya iyo Uganda uga mahadceliyay kaalinta ay ka qaateen gurmadka dadka ay waxyeeladu soo gaadhay 14kii bishii dhaaftay Oktoobar deegaanka Soobe magaalada Muqdisho, waxaana ku amaanay isxilqaanka ay sameeyeen. sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya ayaa culimada Soomaaliyeed kala hadlay sida ay kaalin uga qaadan lahaayeen wacyigelinta bulshada iyo inay ka qayb qaataan dagaalka dawladda ay kula jirto argagixisada, maadaama kooxdu ay ka been sheegtay diinta Islaamka. culimada Soomaaliyeed ee guddiga dhaqaale ururinta ka waday dalka Kenya iyo Uganda ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho, waxayna sidoo kale la kulmeen ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre iyo guddiga gurmadka ku wareejiyay dhaqaale kor u dhaafaya $350,000 oo dollarka Mareykanka, iyadoo 35,000 laga ururiyay Soomaalida ku nool dalka Uganda si loo gaarsiiyo dadka waxyeelada ay ka soo gaartay qaraxii Soobe ee bishii la soo dhaafay lagu gumaaday dad kor u dhaafaya 400 oo ruux. Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo kamid ah culimada ugu caansan Soomaalida fadhigiisuna yahay magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya ayaa kulanka ula qaadanayo madaxweynaha dalka Soomaaliya waxa uu noqonayaa booqashadiisii labaad ee uu ku tago dalkaasi Soomaaliya. Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo kamid ah culimada waaweyn ee dalka Soomaaliya ayaa u muuqda mid taageero u fidinaya dawladda dalka Soomaaliya. Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo kamid ah culimada waaweyn ayaa ah sheekh hadalkiisa ay si dhow u dhageystaan ama u qaataan bulsho weynta Soomaaliyeed guud ahaan meel kasta ay joogaan. sidoo kale Sheekh Maxamed Cabdi Umal ayaa laga yaabaa inuu kulamo la qaato bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan magaalada Muqdisho.